shirkadda dahabshiil ayaa markii ugu horeysay waxay maanta magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ka daahfurtay adeegga loo yaqaano e-dahab. munaasabadda daahfurka adeeggan oo ka dhacday hoolka shirarka iyo xafladaha Mahuraan ayna ka soo qayb galeen wasiirka caafimaadka Soomaaliland badhasaabka gobolka Sanaag maayarka Ceerigaabo maamulaha banka Ceerigaabo taliyaha booliiska Sanaag maamulaha iyo shaqaalaha shirkadda dahabshiil Ceerigaabo madax dhaqameedyo haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo badan ba ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maamulaha shirkadda dahabshiil Ceerigaabo Cabdiraxmaan Maxamed Ciise kaasoo faahfaahin dheer ka bixiyay adeeggan e-dahab faa'iidada uu bulshada u leeyahay iyo qaabka uu shaqeynayaba waxaan hadaladiisii ka mid ahaa adeegga e-dahab waxay shirkaddu ku bilowday Somaliland 2014 dabayaaqadiisa iyadoo adeegu maanta joogo dhammaan magaalooyinka dalka loo yaqaano ilaa Laascaanood iyo goob kasta oo ganacsi oo ku taala iyadoo adeegu ay qaateen muddadaas in ka badan 100 kun oo isugu jira macaamiil iyo taasoo muujinaysa sida adeeggan macaamiishu ugu xiiseeyaan una soo dhaweynayo waxaana adeeggan ka heli karaa dhammaan xarumaha dahabshiil center oo ka kooban 100 xarumood adeeggan wuxuu ka dhisan yahay systemka ugu casriyaysan uguna sakuuraysan waqtiga la adeegsado teknolojiyada mobile banking ee adduunku ay dhistay mid ka mid ah shirkadaha caalamiga ee ugu horeeya teknolojiyada iyo samaynta sistemyada systemka e-dahab waxa uu ka shaqeynayaa connected internet aan ku xidhnayn internetka oo suurtagelinaya macaamiisha iyo xarumaha dahabshiil iyo center inay adeeggan heli karaan mar walba xitaa haddii adeeg internet laga waayo dalka oo dhan boqor maxamed boqor axmed cali boqor ibraahim maxamed xasan iyo suldaan ismaaciil nuur wacays oo iyaguna munaasabadan ka hadlay ayaa dhammaantood si isku mid ah soo dhaweeyay adeeggan cusub ee e-dahab uguna baaqay bulshada inay ka faa'iidaystaan kulliba maamulaha shirkadda dahabshiil ayaa inoo sharxay adeeggaas waxa uu qaban doono waxaan rajaynaynaa kulley mid lagu intifaaco uu noqon doono oo dadka u aqoonseeda horumar iyo barwaaqo danahoodii ay lahaayeen u soo koobi doona insha allah annaga gobol ahaan waan soo dhaweynaynaa adeeggan cusub maamulaha shirkadda dahabshiil ee gobolka Sanaag wuxuu faahfaahiyey waa adeeg loo baahnaa aan la qabo inuu dadka la macaamilo u faa'iideynayo markaan waxaan leeyahay laga faa'iideysto e-dahabka ee waxa weeye laga faa'iideysto waana ku mahadsan yahay maamulaha shirkadda dahabshiil Cabdi Maxamed Ciise maamulaha banka Ceerigaabo Maxamed Cabdiraxmaan Xandulle oo isaguna halkaasi ka hadlayay ayaa wuxuu yiri barnaamijkan waa barnaamij dhaqaale runtiina wax tar weyn uu leeyahay xagga iqtisaadiga marka laga hadlayo marka waa soo dhaweynaynaa runtii maayarka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo badhasaabka gobolka Sanaag Maxamed Cali Salebaan Ramaax oo iyaguna halkaasi ka hadlayay ayaa waxa hadalooda ka mid ahaa maanta kulli waa maalin cusub oo ay loo fureen system cusub oo la dahabshiil waa in horumara hore saad baynu naqinay e-dahab noogu soo kordhay waxa weeye horumar weeye aad iyo aad shirkadu mahadsan tahay ilaguna waxay tadeerin isticmaali doonaa runtii maanta waxaa sharaf weyn ee ah in ka soo qayb galo e-dahab oo laga furayo magaalada Ceerigaabo in badanna aynu ka maqlaynay in la bilaabay sanadkii hore sanadkan ay suurta gashay markii ugu horeysay inuu magaalada yimaado waan soo dhaweynaynaa ugu dambeyn munaasabadan lagu daahfurayay adeegga e-dahab ee gobolka Sanaag ayaa waxaa soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Xagle Toosiye e-dahabka gobolka Sanaag runtii shirkadda dahabshiil waa shirkad weyn oo mug leh oo miisaan leh adeegyo badan oo qabata dadkeena iyo bulshadeena adeeggan ay maanta soo kordhisay sanadkii hore ay bilowday maantana maraya Sanaag waa adeeg aad u wanaagsan oo adeeg aynu u baahannahay waxaana farayaa mujtamaca ama bulshada reer Sanaag inay ka faa'iidaysato وعبد الله حسين درويش شبكة عالمية أودو إن نيوز مقالة Ceerigaabo